aan idin tuso sidee ayaa loo nadiifin karaa kombiyuutarka. Sidaynu markaa u ogaano sida loo nadiifiyo kombiyuutarka, waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay star. Star markaad ku qorto halkaas waxaad ku qoraysaa muxuu ahaye clean, ama waxaad ku qoraysaa desk clean, kaadi waa desk clean ma kusoo baxa. halkaas waxaa kusoo baxaya programmadaas uu kuu raaciyo. waxaad dooranaysaa ta u sareysa oo ay tahay enable you to clear your desk of unnecessary files. waa faylalka aan faa'iidada lahayn inaad muxuu ahaye aad iska nadiifiso oo waxa weeye kombiyuutarka ka saarto. halkaasaad markaa ku dhufanay dhag, waxaa kusoo baxaya shaashadan yar aad aragto. waxaa ku qoran driveska aad doonayso inaad nadiifiso, yacni hard driveska aad doonayso inaad nadiifiso. ma sidaad rabtaa, ma waxaad rabtaa dhiida mise biida. tusaale ahaan anigu waxaan rabaa siida oo programmada gala siida ee waxa weye unnecessary aan muhiimka ahayn ayaan doonaya inaan iska nadiifiyo. waxa weeye markaan doorto waxa weeye waxaad ku dhufanaysaa okay. okay markaad ku siiso waxa uu ku oranayaa desk cleaner app is calculated how much space you will be able to free on Windows. intee kuu banaanaanayo xisaab inaad xisaabiso. waxaad xisaabinaysaa imisa space ayaa kuu banaanaanaya oo free kuu noqonaya Windowskaaga c. markaa meena waxaa meesha laga saarayaa folderska unnecessary-ga ah ayaa meesha laga saaraya. waaya in doora yara qaadanaysaa way noo soo baxayaan. marka intaa waynu iska sugaynaa. wixii maogtahay waa systemkuna processing buu maraa ama waa wareegaa insha allahu tacaala. markaa wuxuu ina siinayaa inaynu iska tuuro folderska sideena ku jira ee aan muhiimka ahayn. waxaa weeye markaa space baad helaysaa. sidaa kuu sheegay inta space aad heli waa inta iyada laga download gareeyo laga delete gareeyo ayaad muxuu ahaye helaysaa. oo waxa weeye wuu inoo sheegaya insha allahu tacaala waanan helaynaa. markaa waa iska sugaynaa muxuu ahaye inaynu muxuu ahaye iska clean up garayno.